halkani waa deegaan xeebaadka Garacad oo ka tirsan degmada Jarriban ee gobolka Mudug qaybo badan oo kamid ah Jarriban waxa ka jirtay abaar daran laakiin habeenkii xalay ahaa waxa ka da'ay deegaankani Garacad roob ay dad iyo dunyaba ay markaasi ku najixeen isla mar ahaantaana ay ku teedsan xeebaha roobkan oo bilaabmay 8 ama 2 habeenimo ee xalay ayaa da'ayay ilaa saakay waxaana wararka aynu helinay sheegayaan in qaybo kamid ah deegaankan ama degmada Jarriban uu roobkaasi ka da'ay roobabkan qaybo kamid ah miyiga ayaa la soo warinayaa inuu xoolaha waxyeeleeyay isla mar ahaantaana uu yahay roob lixaad leh oo aan dadka deegaankan ay si weyn ugu dirsadeen waa roobkii ugu horeeyay ee xilli dayreedkan ee intaan la eg ee ka da'a degmada deegaankani iyo deegaano badan oo ka tirsan degmada Jarriban raxmadan rabbi ee xalay ilaa maanta ku horeysay deegaano ka tirsan degmada Jarriban ee bariga gobolka Mudug ayay si weyn ugu riyaaqeen dadka dega dhulkani oo u badan xoolo dhaqato wajahayay abaar daran oo biyo la'aanta ugu weyneed bulshada Garacad ee xalay roobsatay ayaa rabbi uga mahad celiyay raxmadiisa sidoo kalena noo sheegay in deegaanada qaar daadad soo rogmaday ay waxyeello geysteen magacayga Cabdullaahi Maxamuud baa leeyahay inaan fanax baa leeyahay qanadowga waxaan u dhashay deegaanka Garacad iyo degmada Jarriban deegaankan abaar baa ka jiray sabab oo baan waxa xoolaha ugu daraa biyo la'aan iyo cunno la'aan ilaahay roob habeenka xalay ahaa soo saaray goor 7 saac iyo 6 saac meelahaas roobku markii hore iska tumay qabow uu ahaa hadii waagu noo bariyay arada aan wareysano telefoonada iyo wax wacnay roob arada lagu sheegay soo fiicana waana qabtay meel la yaado badqado oo 7 kiiloomitir hadda inoo jida ilaa 25 kiiloomitir meeshaas dad iyo duuye baa la sheegaya waxyeello ku gaadhay waa baligaas waa ku buuxsamay dhulkuna qarar buu u yahay meel loo baxo ma leh aduu gurmad iyo baabuur waxba aaday ilaahay maadi intaan ku qorqomno ilaa xadar ilaa godad jiraan ilaa doob cantuub ilaa ay dhulka rooba laga sheegayaa degmada Jarriban ayadu magaalada ma roob badna qabow way sheegatay ma sha Allah markaan haatan oo watan hayo waan ugu daahayaa ilaahay maadi waxa xalay ilaahayna siiyay raxmadii eebe muddo badan la sugayay yeertii maadaama ay soo daahday xilligan kale waxa noo daahays waa hayskii weeye deegaanka waxa ka jiray abaar baahan oo muddo badan ka taagneed xaaladdu waxay taagneed abaartaas in miigi dadka hadda laga soo daadguray ahayd maalmahan gurmud baa socday abaabul baa socday maanta alxamdulillah meel walba ilaa deegaamada degmada ayl ilaa godob jiraan ilaa waaxiga deegaanka Garacad dhan saaka roobkaas waa lagu diirsaday ilaa xalay sabta dhexdudayay saaka waxaan leenahay haddaas eebe u sugnaatay ilaahay baan uga mahad celinaynaa intaan ka warqabno deegaamada oo dhan ilaa dhabaqa alxagar labalamaani Jarriban wadankaas oo dhan roob baa laga sheegay alxamdulillah ilaahay baan wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye haddana waa da'aya badu fadhiya waa jir abaartii ilaahay baa naga saaray wadanka adawaad ka jidho aan roob ka deena waxaan leenahay ilaahu ka dulqaad shuka aadan guri telefishinka Universal Garacad